السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيجا ولكن بشك بشيرة إذن الله لوسة دوادو يوتيوب channel كيجا يا هلا سبسكرايب قريه سيان لو بين في عندنا أصوات كشتي موجودة سبسكرايب بشك بشير يوتيوب channel هدي أتهمركي كوه ليس أصوب بقطو يوتيوب channel كينا فلنا هيلو إنها سبسكرايب بعد كوزي فيديو لا قريه هذا وما صندق ما أنت يا تما استيل كار قركي يا مسك ديار سنو ما شاء الله هو السقر by the way maanta horta waxaan rabaa inaan idin la wadaago asxaabta badan qof walba dhalinyarada naga mid ah wuxuu jecel yahay timo qurux badan oo hagaagsan oo yaani timihiisa inay mar walba oo ay classic u ahaadaan aysan ka gogo'in sidoo kale bidaarna sidoo kale iska ilaaliyo waayo alaabtaas hadii ku soo gashay qalaas waayo laakiin intay ku soo galin waa iska gaari kartaa waa iska ilaalin kartaa yaani marka maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago timahaaga qaabka aad u ilaalin karto timaha horta qaab badan loo ilaaliyaa horta mid ugu horeyso waxaa jirta dadka Soomaaliyeed horta timaha qaab loo keergareeyo jirto oo loo ilaaliyo mid ugu horeyso waxaa rabaa horta maanta waxaa rabaa inaan kula wadaago 5 qaab timaha hadii aad sameeyso ee noqonayaan timo aad u qurux badan mar walbana ay ku care gareysmayaan mid ugu horeyso horta timaha wiigi 3 mar kaliya inaad dhaqdaan la doonayaa 3 mar kaliya waa 3 mar timahana aragtaan hadii aad maalin walba aad dhaqdo timi wax laga yaabaa inay daataan waxaan dhar ma ahan xitaa kalarkooda oo black ayaa dhumaayo marka wiigi 3 mar ayaa dhaqaysaa bas 3 mar wax dhaafisa mala 3 mar shaambo ku dhaqaysaa maalin walba marka soo toosto inaad dhaqdan la maro ani wallahi shalay meed misdaradha hal maalin aan dhaqay timaha waan shalneystay waan ku seexday markaan saa u soo toosay haddana jiima ku aaday waxa ku kaliya bis marka salaada tukanay biyaha yaani maadaama ay weysada oo tintan gaarsiinaysid kaliya iyo shalnada iyo burushka intaan geesaa ku shalnay kor inaan taabtama ma wataawan ma dhaqin sidaas shaqada ku aaday waa hagaaji marka teeda kala iska ilaali timahaaga every day inaad dhaqdo timaha hadii aad maalin walba aad dhaqdo waxa laga yaabaa timihii inay daataan waa mideen ugu horeyso shaambo ku dhaq waa toddobaadkii waxa dhaqaysaa 3 jeer kaliya masla garan 3 jeer kaliya dhaq toddobaadkii mid labaad timaha ma soo dhaqday Soomaa markaad dhaqdo waxaad adoo markaad soo dhaqdo waxa loo baahan yahay intaad yara qalajiso waxaad isticmaalaysaa conditioner waxa la horta aydan waa kareen markaad mariso timaha jaleecu kaaga dhiga xagana idin soo saari doona sawirkiis conditionerka noocyo badan midkii aad helaysid asoo caag weyn wuuna jilcan yahay like shampoo waayo يعني وحاواي مركز صوت أخذ أيضا مرنسا تيمي أيقات قلالة جيسان مركز كوير حينسا كونديشنير كحوجات كوينسا كم بدينيسيد كونديشنير خفيفة مرنسا وات كوينسا مركز كونديشنير كويس أوريلي لو صوت أخذ سما كونديشنير كان مرنسا كونديشنير كمركز كوهاي مركز كوهاي إلا يمد كذب سليد إكران واحد مرن كرتم مري مركز كونديشنير كحوجات في عيني هاي timaha ayuu soft ka dhigaa wajilcina conditioner laha kulay conditioner shampoo isku jira jirta laakiin conditioner kaliya isticmaal already shampoo oo waxaad ku soo isticmaashay sama oo ku soo dhaqday laakiin marka waxaad isticmaalaysaa conditioner kaliya timaha aad marinayso waa mideen labaad mid saddexaad ee timaha inay daataan ama go'aan keenayo waxay tahay dadka mostly dad waxa jira isticmaala koofiyad كوفيد واد استعماشي دم مالها كوفيد وحاجرت وحو كسمينا كوفيد او كو عريري عم وسكو دجنا كوميدي كوفيد دا اسكو دجت تميه وحي دريرا ما يان عريري ماشي اد كوفيد كو دجت علامه وحاليا ذات تايم تنتي اني جبتو عدادي سي دريمسا marka كوفي كوغو دغن لايك كوفيدا بدنا waxa isticmaala xilliyada oo barafkii meelaha qaboobaha jiro كوفي qam ala wada xirta Soomaa dadka reer Yurub oo Yurub joogno waxay bidaal u wada leeyahay waxa mataqana baraf iyo qaboobaha intay qabowga iyo barafka iska ilaal ay leeyihiin waxay iloobayaan timihii iyo waxyaabihii keenin gar markaas qam
كوفي او كدغن او دقاق يعني انت اصلا قوغا اسكيل على marka saa u gashato qalaas timihiin ila waxay dareemayaan pressure wal sukeen way huurayaan shayna haduu meel ku huuro maxaa sugaysaa inuu caadi u daadanayo sama dad shayal qaar waxa jirta in oo adag hadii aad caadi wax u sameeyna dhahla ma kareysid waxa la sameeyaa biyo lagu dhaxrida ama meel inta lagu sameeyo waa la huuriya kadib tartiib aad u qaadaysaa marka soo adiga isticmaalin koofiyad oo tight kuga ah kugu dhigan koofiyada nafisa isticmaal hadii aad reero koofiyada aad jeceshahay laakiin koofiyad too much kugu dhigan oo tight oo aad cariir ku ah like lastig oo kala ha isticmaalin waa mideen saddexaad waxay koos gareynaysaa inay timaaga daataan bidaar degdega ay ku keento marka iska ilaali ayadana midda afaraad inaad isticmaasho geedka heating la dhaho oo timaha yani dumarka badana u isticmaala xitaa ragga xitaa way isticmaalaan meelaha oo timijiraasha lagu isticmaala geedkan aad maalin walba tintaada u isticmaasho soo aad u kulul hadda geedkaas timaha aad ku qalajinaysid isticmaal laakiin hawada ka soo baxaysa yeysan noqon hawa aad u kulul oo sababaysa inay tinta ama kuleelka gudaha ka dareentid waayo marka aad waxaas leedahay jirkaaga kuleelka soo yaraad kaysan kara laakiin tinta uma adkaysan kara hadii kuleelka uu ka bato tinta inay daataan oo ay daciifto oo yani ayada tinta sideeda waa daciif soma hadii wax kulul way already way si yaraanaysaa haday si yaraatana adna shan loo sii darto waxa meesha waxa ka dhacaa inay daadato so iska ilaali geedka oo timaha lagu qalajiyo oo heaterka ah oo yani hawada ka soo baxaysa hadii aad u isticmaashid ha ahaata hawa normal oo qalajiska hadii aad iska dayso oo shukumaan isticmaasho aad ugu wanaagsan hadii aadan ka maarmaynin aad kaas aad isticmaashin kuleelka aadka ah ka yaray hawa normal oo qalajis oo qawoon ahayn marka isku day inaad ku sameeyso waa mideena afaraad midii shanaad aan ku soo gabagabeynaa waxay tahay isticmaal organ oil mar walba video hore aan uga hadlin way jirtaa organ oil ayadana xagana idin soo saaray organ oilka waxa la yiraahdaa horta saliidaha dabiiciga oo timaha loogu talgalay kareenadan iyo waxyaabahan kale waa wax la isku dardaray laakiin saliida geeda laga sameeyay geedkii kaliya waa warshada la soo mari waa laga soo miiray qaraas waa organ way saliid waa wax kareen iyo saliid marna isku mid ma saliida aad u wanaagsan oo saliida isticmaal way saliida tintaada nafaqaysiinaysaa meeshay ka soo bixisay garoobin geedka ama shay markuu soo baxaayo waa la waraabiyaa saliidaas waxay ku noqonaysaa tinta yani biyo ahaan iyo waraabis ay u noqonaysaa yani tintiina gudaha meesha ka soo bixisay saliid toos u galaysaa laakiin kareenadan kale markii kor ma dhaafayo ama laga yaabo inay gudaha meeshan istaagaan laakiin saliida maadaama ay dareere tahay direct waxay aadaysaa tinta meesha ka soo bixisay sidoo kale ila meesha tinta ka soo bixaysan hadii aad si fiican soo fiicin marka soo socoto hoos waxa yani waxay leedahay wax Ilaahay uu sameeyay meesha ka soo bixisay geed yani oo dhulka laga soo saaro kale wax qoyan ay hoos ku leedahay tinta marka la soo saaro meesha jirida marka ka soo jarto kulli hadaad aragtay soo meeshaas ay toos saliid u tagaysaa waayo waxay ka qayb qaadanaysaa inay tintii baxdo marka organ oilkaas aad u wanaagsan yahay noocyo badan jira organ oil saliidaha timaha hadii aad aragto oo wanaagsan marka isticmaal marka ku badan jira kulli hadda waxay ku xiran tahay wadanka aad ku nooshahay ama nooca aad ka helayso marka organ oil ba hadii ay tahay like qumbaha laga sameeyay soo waxay jirtaa saliid saytuun oo yani sidoo kale waxay jirto waxyaabo badan oo ayagoo laga sameeyay jiro saliido oo madax loogu talgalay marka raadi organ oilkaas isticmaal timahaagana way ku freezing ay ka dhigaysaa timihiin way u baahan yihiin ku bixinaysaa marka maanta shantaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago hadii aad ka heshay waxun ka faa'iiday ha iloobin inaad asxaabtaada la sii share garaysid marka kulay hadii aad isleedahay video ama tinta waxyaabo kale aad adigana aad qabto su'aal commentiga nagu lore sidoo kale garka saliid garkana hore waa jirta hal video ka sameeyay marka hadii aad rabto aydan inaan ka soo sameeyo ama ka soo hadlo oo qaabka garkaaga ama waxyaabo badan oo ku saacidayo aydan comment-aaga hadii aad xidid badan ay xiiseynaa arkayana video ayaan ka soo sameyn doonaa marka wixii fikirkaaga commentiga nagu la wadaag marka waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh peace and love nabada ka shaqeynaa